guddiga jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Riyadh ayaa bilad dahab ah oo mahadnaq ah ku abaalmariyay ra'iisul wasaaraha dalka Turkiga mudane Rajab Tayyip Erdogan iyagoo u sii mariyay danjiraha dalka Turkiga u fadhiya dalka Saudi Arabia mudane Ahmed Mukhtar Goon gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Riyadh injineer Abuukar Sheekh Cabdiraxmaan Yakshiid iyo xubno ka tirsan guddiga jaaliyadda ayaa booqasho ugu tagay xafiiskiisa danjiraha dalka Turkiga u fadhiya dalka Sacuudiga halkaas oo si diiran loogu soo dhaweeyay mas'uuliyiinta jaaliyadda kulan gaaban oo halkaasi ku dhaxmaray labada dhinac ayaa gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Riyadh uga waramay danjiraha Somali community in Saudi Arabia. We come today to express our thanks to the government of Turkey. waxaan halkan u nimid inaan u mahadcelino ra'iisul wasaaraha dalka Turkiga xukuumadda iyo dadweynaha reer Turki isla markaana aan kugu wareejino biladan aan ugu talagalnay ra'iisul wasaare Erdogan iyo kaalmada ay u fidiso ummadda Soomaaliyeed sidii loo sii wadi lahaa xiriirka walaaltinimo ee ka dhaxeeya labada dal ee Turkiga iyo Soomaaliya waxaan rajaynayaa in halkiisa uu ka sii socon doono xiriirka labada dal sidoo kale danjiraha dalka Turkiga u fadhiya dalka Saudi Arabia mudane Ahmed Mukhtar Goon oo isaguna halkaasi ka hadlay waxa uu yiri to be presented to our prime minister and I thank you very much for this very nice gesture. I am sure he will be very waxaan idinkaga mahadcelinayaa abaalmarintan aad u garateen ra'iisul wasaare Erdogan waxaan filayaa inuu ku farxi doono guddoonsiinta abaalmarintaasi Turkiyana waxay safka hore kaga jirtaa dalalka wax u qabta Soomaaliya haddaba intaasi kadib ayaa waxa gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Riyadh injineer Yakshiid uu ka gudoomiyay danjire Goon hadiyad muujinaysa diyaaradaha Turkish Airlines munaasabadaasi waxaa dhinaca jaaliyadda goobjoog uga ahaa xogeyaha arrimaha bulshada iyo waxbarashada ee jaaliyadda mudane Shu'ayb Sheekh Yuusuf xogeyaha guud ee jaaliyadda mudane Ahmed Deeq iyo mudane Diiriye Farax Soble iyadoo dhinaca Turkiga ay goobjoog ka hayeen la taliyaha dhinaca waxbarashada ee safaaradda Turkiga ku leedahay dalka Saudi Arabia mudane Hamza Sahin iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan safaaradda Turkiga Ali Jaamac Cilmi Cali Kuus TV-ga qaranka Soomaaliya Riyadh Saudi Arabia